السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي قال لك سر وهذا مركز عيد بيتك يوتيوب قناة كتاك سبسكرايب بعدين شوف تنو يوتيوب فيديو قال لك اشتري له كومنت وراكتينا صاحبي يا اسك سنة قدنا نكسن صاحبي قاريقة مدوني سينا سوق قدتيت لابتوب عصيبة لكن العكتيسو زائد مكوكو بدنتهاي مسمى شيء رفابش لكن مو رفابش كاسي waxa uu yahay haddaba 3 daqiiqo gudahood waxaan kugu fahansiin doonaa ama aan kugu bari doonaa farqiga u dhaxeeya rafaabish iyo cusayb iyo midka waliba adiga kugu haboon. haddaba saaxiibayaal waxaad doonaysaa inaad laptop soo iibsatid, laptop leh processorkaas Core i7 generationkiisu yahay meesha ugu dambeysay 13 generation, graphic card leh, fiidiyoyaasha lagu samayn karo, gaming lagu dheeli karo. laptop waxaan doonayaa oo waliba cusayb ah, laakiin suuqi markii aad tagtay waxaa lagu dhahay laptop oo programyaashaas iyo specificationkaas leh qiimihiisu midka ugu yaray waa $500. isla qofkiisaas ku dhahay ayaa waxa ku dhahay waxaan hayaa mid kale oo ah rafaab. isla company-ga aad sheegaysay haddii aad HP rabtay oo processorkiisu Core i7 yahay waxa lagu dhahay isla asaga noocaas ayaan haynaa, laakiin cusayb maahane waa rafaab. waxaan ku hormaraynaa laptop cusayb ah horta marka koowaad. laptop cusayb ah waa midkii aad taqaanay, waa adiga ayaa bacda ka jiraysid, adiga ayaa kartoon ka soo bixinaysid, kartoonkiisa ayuu ku jiraa, qaabkan ayuu u qurux badan yahay. marka wax tafaasiil dheer ah uma baahna oo waa laptop cusub, waa adigoo soo gatay mobile cusub oo kale iPhone 17 oo 2025 jooga adoo soo gatay camal weeyaan, waa cusaybkii ugu dambeeyay. haddaba waa maxay rafaab? rafaabkan waa laptop qof gatay, hadda ka hor ayaa qof gatay, sabab jir dartood ayuu company-gu ugu celiyay. company-gu markuu ku celiyay, company-gu waa dayactireen waxyaabihii oo la'ay, hadduu keyboard la'ay, haddii oo meel la'ay, hadduu mouse la'ay, waa la habeeyay. kabacdina inta la nadiifiyay oo wax walba laga test gareeyay ayaa dib loo soo suuq geeyay. waxaa laga yaabaa in uusan ka dhicin ama haddii uusan ka fiicnaynba midka cusaybka ahay ee aad raadinaysay. markaana waxaan isbarbar dhigaynaa laptopka cusub iyo midka rafaabka ah. laptopka cusaybka xaaladiisa guud mar walba waa 100% oo safe weeye, laakiin midkan kale waxaa laga yaabaa in aad loo soo isticmaalay oo markaas mid waa hore soo baxay aad qaadatid haddii aadan generation iska fiirin. sidoo kale midka cusaybka ah warranty waxa uu ka haystaa qoladii soo saartay, haddii HP tahay, haddii Apple tahay ayuu ku haystaa. laakiin midka rafaabka ah warranty kama haysto company-gii lahay, warranty waxa uu ku haystaa qolada aad ka soo gadatay, raseelaha aad ka soo gadatay, dukaankii aad ka soo gadatay ayaa markaas warranty ku siinaya oo ku dhahayo wixii cilada anaga nagu soo celi. sidoo kale baterigiisa midka cusaybka ahi waa buuxa oo waa 100% oo baterigiisu walwal ma lahaanayo, laakiin midka rafaabishka waxaa laga yaabaa in baterigiisu yahay 80% la soo isticmaalay ama 90% oo yahay oo macnaha meeshaas 5 kamid la soo isticmaalay. qaybta ugu dambaysa marka aad iibsanaysid laptop waxaad iska fiirisaa mar walba generationka iska fiiri. waxaan kugu talin lahay in aad iibsatid laptop ka sareeya 6 generation haddii uu rafaabish yahay. mar walba laptopka waxaad ka fiirisaa generationkiisa waa meeqa generation, markaas ka bacdi ayaa waxaad fiiri kartaa processorkiisu waa meeqo, RAM-kiisu waa meeqo, screen-kiisu intuu leeyahay. laakiin qodobka ugu horeeya waa generationka micnaheeduna waa inuu cusub yahay ama cusayb u dhow yahay. waan filayaa saaxiibayaal haddii aad halkan ila soo gaarteen in aad wax un ka faa'iideen fiidiyogan. haddii aad wax ka faa'iiday like-ta, subscribe-ta iyo comment-ga ku yaac. sidoo kale la sii wadaag saaxiibadaada si ayagana wax uga faa'iidaan. intaan fiidiyogan waxa kulmi doona saaxiibayaal waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.